nin oday ah oo kamid ah ama ugu horeeya ragga taariikhda mudug laga wareysto oo bisha Febraayo tahay 23 magaciisana la yiraahdo Warsame Cilmi Xasan Dalgareed ku magac dheer aadna looga yaqaan gobolka mudug ninka odaga ah ayaan maanta waxaanu ku warsanaynaa guriga gudoomiyaha xogahayaha gobolka aanu ka warsanayno taariikhda uu u dhow daloolo ee ku saabsan Hobyo iyo mudug iyo wixii ka dhacay oo taariikh ahaa la isweydaarsaday sadanooyinkii Hobyo tii Boqor Cismaan Hobyo iyo Daraawiish Talyaani iyo Hobyo Albuur iyo wixii ka dhacay arrimo caynkaas ah ayaanu ku soo qaadi doonaa bal adeerkay Warsame waxaan codsanayaa inuu noo bilaabo soo ka bilaabaya sidii ay ku asaasantay Kennedy sidoo ku asaasay Hobyo sidii ay Kennedy ku asaasmay anigoo taariikhda aan dhigmadii ay xoogaa iga maqantay waata hor iyo baato waxa yimid Kennedy Ali Yusuf ma waa Kennedy Ali Yusuf aabihiis waata wuxuu la yimid doonta uu ku wata dhar iyo timir iyo bariid iyo sonkor iyo tobaakayo bal yira tobaako Soomaalida cunto waata Hobyo soo digay waata Hobyo magaalo ma aha markaas waata waa xeeb waata daar ma leh waata guri ma leh waa ceel laga cabo magaciisa la yiraahdo qoole ceelka magaciisa qoole la yiraahdo waata ceelka ku xigana waxa la yiraahdaa Deeble waata labada ceel oo dadku ka cabo shicib weynaha ayuu asagu xeebta soo degay waata laba daraarood uu badda yeelay oo uu soo dhaadhicin waata doonta baroosay leedahay loo dhiga labada daraarood hadii uu joogay oo wax u yimaado uu waayay ila dadkii badan ma leh doon ma leh waxba ma leh way badda ku tagaan dadkii dibadda haway waqtigaas ayaa waxay wateen huuri waata huurigu ma aha badamada waa bahal yar muqdaaf fasaad liira nimankan Talyaaniga yaqaan ku ugaarsada marka huurigaas ku soo digay waata sooma degin Kennedy waxa soo degay laba nin oo bidooda iyo nin maxaa Ismaan Maxamuud oo la socda Sulcayn iyo wax la oran jiray Sulcayn iyo ninka la yiraahdo Farajalle bidood badan buu wato ku sheegi doon ninka xeebta soo degay oo la soo degayna oo Ismaan Maxamuudna waxaan jeclahay inuu ahaa Gaboos la oran jiray markay soo degeen oo huriga ku soo degeen waxba ma wataan huriga oo bay saddexdood ku yimaadeen xeebtii bay yimaadeen waxa uu yimid dad xoolo raacto ciyaal yar iyo naaga iyo waa wareysteen dhulkan maxaa la yiraahdaa dhulkan qoole la yiraahdo markaas Hobyo magac ma leh waa ila wal ceel la cabe عيشان وحلا يرى قول عيلك كعجنا وحلا يرى دبلي أدنكو ياتين أنا وحنا ضد كاسعد كماشي أنا دقنا هاي ضد كل كان كل رقمة باننا وعيرهن وحربنا بريتو ضد أضيال إن النوي ماذا عوض عدي تكتان ضد كورجية أضيال النوي ماذا عيال كواتي وعيرهن دوني ذي بد التاجني bahal yar baa ka soo degay ma ay aqoonin xitaa ciyaalku ma bahal yar baa ka soo dego saddex nin baa ku timido saddexdan Soomaali weeyo af Soomaali nugula hadleero waxayna yiraahdeen kolkayna nabdaystee waxaan doonaynaa in loo yimaado oo dad odayaal ah aanu iswareysano aanu helo ciyaalka way wargeeyeen subaxida waxa yimid saddex nin oo odayaal ah oo saacadka markaas ayaan madagana meesha ما Talyaani ma waa Kennedy Talyaani wuxuu ku filaha Ali Yusuf waa Kennedy koor wax kaaga sheekeynay markay yimaadeen nimankaas meeshaas ugu yimid in waxa la oran jiray Sheekhu Cilmi Caalim
ninna waxa la oran jiray maxamuud ayaan la guulay ma urgacani waa damay ninka kale waxa la oran jiray xaji axmed liibaan saddexdaas raggi ugu soo horreeyay ragga ay ahaayeen nimanka u yimaadeen waa la iswaraystay waxay yidhaaheen waxaana waxba keena diidiyo uma sheegin waxaana anagu niman ugaarata ah oo beec mushtara baddana waxaan ka guranaa labaaxa iyo kalluunka iyo waxaas birigana waxaan ka gadanaa harkaha iyo subaga iyo bahal yira garceesaan iyo waxaasaanu ka gadanaa waxaan idiin wadnaayood wax nooga gadanaysaan dhar malaykaan ah iyo bafto iyo bariid iyo timir iyo masagal la yiraahdo angow iyo tobaako la cuno bahalka buuriga oo dadku sanka udnabana ruuga laakiin waxaan rabnaa inaanu waxaas oo hayno inaanu meel nasiisaan aanu ku soo degno nimanka waxa la yiraahdo soo degina waa wargeynaynaa ilaa anagu kaliya ma ahine waxaan u geynaynaa dadweynihii ayaan wargelinaa nimanka waa tageen shirbay waceen waxa la yiri war waxaanu aragnay niman alaaba sita oo beec mushtara waxay yiraahdeen waxaan rabnaa inaan soo degno dadka wax ka gadano waxaan gadanaynaa haragga waxaan gadanaynaa ariga waxaan gadanaynaa subaga waxaan gadanaynaa bahar kale ceesaan liya garcaan fatar ma taqaanid waa geeda ka baxa dhulka dhirta oo ubaxna maaha garceesaan baa la yiraahdaa maxaa lagu faraa waa la gadan jiray berigii hore wuxuu shabahaa sida suufku u jilicsan yahay marka barkimaha in la jiro barkima inay ka dhigaan ma qaan oo badda la aadi jiray odayaashii waxay ku yimaadeen ayagoo badan oo markaas rag badan marka waxa la yiri idin aragnay waxaan doonaynaa ninka meesha degaya oo madaxda ah oo beec mushtarka ah oo aanu heshiinayno oo wax naga iibsanaya yaan doonaynaa waa nin oday oo soo ma degi kare wixii aad annaga nafari lahaydeen noo sheega annaga u geynayna waxa la yiri annagoo aan ninkii arag waxba idin fari mayno waxa la waa noo berri qolaan doonteeda isaga jiraan uma soo dhadhacan berri waa inoo berri naanka waa tagana waxa la yiri waa keenadiida ugu Yusuf Aliyo nimanka waxa yiraahdeen inaan ninka odaga aragna maahe nin la hadlay maxaa aragtay nimanku dab iyo wax maaye waxay wataan lama arko war ma iyo ulo iyo caadada Soomaal waxaas wataan maxay idin la ekaan bayoon ma niman colaadeed baa oo inay wax laayaan raba mase waa niman anagu nimankaas colaad kuma aanan arag baa markaa laakiin waxay nagu xireen in loo ilaa inaad adigu soo degto Kennedy go waliga wala socdaa marka Kennedy waa soo degay doonta badanka uu soo raacay oo uu yimid radio shiran waa salaam ana wuxuu yiri dhalashada waxaan ahay nin ma jirteen Usmaan Maxamuud baan bah Yaaqub ali magacaygana Yusuf Ali baa la yiraahdaa waxaan ahaa anigu nin beec mushtara waxaan wataa doontaas waa i buuxdaa waa dhar waa bariid waa timir waa sonkor waa baasha tobaakada ah waxaana rabaa inaan gato haragga subaga ariga jarka ah bahalkaas la yiraahdo garceesaanka iyo wixii kaleeto oo adduunka aan ku arko maxaa rabtaa baa la yiri annagu hadii reer baadiyaha aqalla Soomaaliya baan noo dhisan see ku degaysa meesha dhir male hooyo banaan ma hooyo banaan waa la dhir male daar la dega male saad marka meesha alaabtii ama rooba ka qoy ama dabaysha ka ciideynaysa see rabtaa wuxuu yiri qaymad isiiya teendhooyina waa wataa rara loo soo arushi qaymad weyn oo qaymad Soomaaliya baa loo dhisay teendhooyin asaga wato u dhistay alaabtii doonidiisa asaga iska leh meeshuu dhigto wax yar oo saabaan uu ka soo rogtay dharkeen bariidkeen timirteen waxba ka keenay ciidankiisa xitaa soo wada rooyin
wuxuu keenay niman aan waxba wada markaas iyakuna hub ma wata waa la soo degay ragga dhar bay wataa odayaashii ilaa waa nin siyaasi odayaashii wuxuu siiyey dhar waa sooryo qaaday timir buu siiyey beriid buu siiyey waa sooryo qaaday waxaa la yeelay ayaguna dib bay u noqdeen waxaa loo keenay caano iyo ari sooryo qaad oo jar halka waa laysku aqoonsaday goortii toddobaad la joogo wax la kala gatay wixii iyo uu yiri war dee dhahay waxaan aan gatay xagee la dhigi halka dee aniga ciyaalkaygu aan seexano teendhadeena aan alaabta dhigno xagee wax dhigna hadii sayelana waxaan haynaa sida ma idinla fiican tahay buu yiri inaan anigu meel yaran wax dhigto dhagax iyo dhooba iyo aan samaysto هذا هذا وتقنا لأنه ما نقانا هذا هو سمي سنكرته رخصة خبطة وعب استي لا يعرف فرصة إلا ربه وطا الدوم دي سوي سياس كت في حياة تنجح بيلاده نجح فرصة وعب استي قلبر ورت قل كي بستقل كي وحو ويا القلالي فتت كان وحبك ما يقاني قريد اللي maalintii dambe waa la yiri waxaan waryaaya warninkii dudun buu dhistay daar laba yaqaan dudun weeyay lama kana deena afka yaqaanin ba fiicnaan lahaa af Soomaaliga ma kasii ninka ma kasii oo sheeg dadkan ha faa'iideysto markaan dhamayno horta aan dhamayno waa warninkii dudun buu dhistay ma sheegina dudun buu dhistay ومحي تا والله ومنغا وير waxaan dhiganayaa alaabta odayaashii dadkii kala dhacsiinaya wuu waxaan dhiganayaa badeecada aan dadka ka gadanay waa dhulka ama roob baa imanaya ama waa dabayl ama hadii waa ka wixii macnaheedu shalay siyo tibirtii waxaas ku qoyan iyo sokorta waxa yarkaasan dhiganay marka dhoobka uu weyneeyay oo ka dhigay adigu matalan 4 mitir oo kore وهايست قرية بطوطة اللي يراها قريها لما يرجع لهاي أبيرو تلان السومير هذا بطوطة كاس بطوطة سلسلة مير قرية صورست دون توحل وحي وجري بوسور قرية هو دوي كله قيمة دي نخرت ير بس وما هاد سنتين أنا قرية أيام كل رقمية وعلى وجري دبك همين كي وكان مركي كتقال دبك معها دب تيرله بالوت مله وابها اللي يرا كلا شب وعلى يرا هذا ما رشكة ما اسمها رشكة تليانة كان لبضع عفلة شمبرها اللي يقول لها بم ها bahalkaas uu wataa iyo qorshe cays liira waxa lagu gurayaa bahalka dhagax marka dhagaxda lagu gura baaruud lagu shubayo sunaare basaas lagu leeyahay wala adkaynaya bas waa la riday bum laakiin waxa dili maayo woocha kaliya way waxa dili maayo naankii muddo goortii la wada joogo doontii dhafsado ari iyo reer iyo keentay oo masnaa oo dhowr jeer baa raggi waxa la waryaaya war ninkani waxba wada marka waxa la yidhi ninkii sidee baan waa kan dhoobkan u dhistay waxaan waa aroorsaday kulli guduhu ku jira markaas qoryo iyo caano iyo biyo ceelka iska waa ceel biyo macaan sida xareed waa laakiin waxa loo keenaa caano hilib ari jar iyo qoryo iyo waxa looga soo gura meel yara dhambaysh waa deegaanka maalintii dambe waxa lagu diriri doonaa wax sidaas la ahaadaba وغير واحد ربع أنا أقول نسولدا مركو لستي دارتي لستو غريسي وحسي لكن كلام مكليم أنا ماله كليم كنا علم ليه بري كليم ما يروح كليم برغش سعد برغش بكليم صومالي كليم تليان مال مركز تليان مجوج مركز يا مجوج ما مجوج مركا برقش بافدي مقدشو مركز سعيد برقش يو كندي
بوق وقال قريها صوصية لكن برقش كلفتي سقوري بالو طلب ملك كل الدب كدان وبدوينه شام وتوت كان حمر جوغانا وانا ما كانت الرحوين ايوه استعدادك ارى كنت لك معاك ودقالك يقال waxay wataan fallaaro iyo baalkan waranka dab male ninkaas barqashku waxaas kala yimaada marka waxa la yiri maalinta goortu halka joogo wuxuu yiri soo sheeg waa Kennedy baan wada historiyadii Kennedy way marka wuxuu yiri soo shira markii la soo sheegay rag badan baa yimid wuxuu waxaan ahaa anigu nin sultaan ah oo boqor ah waxa idinka doonayaa inaad ammaan isiisaan ila dadkii qoryamada laga dhigo oo lama oran karo maxaa inaa idin xukumo oo boqor idin ahay ammaan isiisaan adinkuna raaciyatihiin baa la doonayaa waxa la yiri oo masaasa dhoobka noogu dhisanaysa adooga iyo awowga la cadaan tug dhalay wala kala yaa war waxaan yeelnaa dhoobka jabino laftiisaba wuxuu doonay waa dudul xun hargal soo qaatay horta naman yar baa yimid godin bay la dhaceen iyo faas iyo wixii daartay baalkaas lagu riday baalku waxa ma yeelin ayaantii daba waxa la yiri waxaan yeelnaa waxaan soo qaadanaynaa dawli iyo yeelo iyo sumanka bixidka yeelo laga dhigan jiray ma garanaysaa iyo geel la tadacay adoo kunna nagu kiciyo hargaas aanu gelinayna tira waa ridayna bam didinta marka boortii raggii aan la soo gaarin oo arkay qalaala fadii waxbad kaga riday ninkii ogaa hameen hore wuxuu yiri buqdu waa been waa bilaash waxba dili maayo buqdu waa been baarku markii la riday baaruuda waxay leedahay iftiin sidii toosh oo kale u muuqanaysa laakiin waa inta afka ka baxaysa toosh haynayo ma markaas uu yiri biriqda raaca buqdu waa been biriqda raaca buqdu waa been meesha xabadu ka dhacayso raacu yiri waxba dili mayso af Soomaaliya biriqda raaca buqdu waa been halkaas ka dhacay nimankii halkiiba harka iyo wixii lagu wada doontay in la rido gurigii bay la noqotay yaa ridi kara daar adoo nimankii waxba kaga dhaawacmay balka day afgalista wax waa dilaysa moota adoo dhowr nin waa kaga dhimatay waxna waa dhaawacay marka waa la kala jeertay waxa la nin wax u geeyay ninkii ila daalimoowi nin wax u geeyay ma jiro nin aada ma jiro marka halkaas markay marayso Ali Yusuf waxa yimid oo ugu horeeyay Ingiriis Talyaaniga Ingiriis bay markuu meesha qabsaday kaga bas way dagaal dambe la isku kuma noqon naayib noqdo waa loo soo shiro wax la yeelayna waxaana tira suldaan naayib lama aqoon suldaan bal oran jiray naayibku waa ministeriyaashan oo kale tuu ahaa naayibyada asaga samaystay marka waa tahay buu yiri wuxuu keenay waxaana kale adduun iyo dhar iyo meesh iyo daara la dhisayo dadkii yiri dago guriyo dhisto oo sidaa rabtaan yeel oo dadkii wali waxba lama dhisan marka hobiyeen baa lagu eegay marka wax laga gatay wax la iska joogo wax la waxayaba dagaalkaasi uu damaya ma garanaysa muddo marka la joogo waxa yimid Ali Yusuf iyo Muuse Yusuf iyo Ahmed Yusuf iyo Ismaan Yusuf iyo Maxamed Yusuf waa wiilasha soo dhalay ma garanaysa waa ilmo Yusuf marka hore odo kale yahay waayo odaga xagee ku dhashay alula marka waxa diriray oo Ali Yusuf uu ka soo fikaday wasku baad qoladaasna bahdir baa la yiraa qoladana bahyaaqo waana walaalo ma garata ilmo Maxamed Suldaan baa la yiraa kulligood waa walaalo bahaha bahdirta almaqayso qoladan bahdir hooyadooda dir qoladana hooyadood waa si waa khroom bahyaaqo baa la yiraa Yaqub kuwanin
marka ayagii goortii keenadiid wiilashaas helo noqdo boqorna uu dhalay haddii raggaan kaleeto baa la iskhilaafay calis waa kasoo kacay wuxuu yidhi intaanu islayn lahayn aniga waddanka ka guuraayo